السلام عليكم وجنال كنيكيسم كنا سو دودا قصو جعل balse intayna bila muuqaalkana fadlan hadad nagu subtay subscribe dhagan bilalkana furo qaybtii labaad ee qisadii ma waxaan filayay baa waxay ku dhacay muddo markii ay reer ahaayeen subaxyada kamid ah isagoo hurdada ka soo kacay ayuu dhinaca xamaama ka aaday si uu wajiga u dhaqdo balse markii uu muraayada isku fiidiyay ayuu wajigiisa ku arkay waxyaabo lagu sawiray oo khad qalin ah waxaana ku sawirtay heeskiisa miskiinta ahayd oo sugaysay subaxnimada markuu arko intii ka daba yimaado uu eriyado kadibna hoog u qabto oo ay wada qoslaan kuna yiraahdo gaalsadeeda dhibka badnayd aad ayaan ku jecelahay iyo erayo kale oo macaan ayay ku dhihi islahayd miskiintu markay ku sawiraysay balse nasiib xumo taasi ma aysan dhicin markii uu arkay intuu u arooday oo uu wajiga dhaqday ayuu soo baxay si uu shaaha u cabo subaxnimo kasta sida aadada u ahayd laakiin markii uu soo baxay wuxuu u yimid iyadoo shaaha u diyaarinin oo wali sugaysa haajigeeda aadka u jecleed misna ku kalsoonay balse markii uu shaahi waayay ayuu aad u sii arooday wuuna u gacan qaaday aradii haysay awgeed oo uu dilay wuxuuna ku yiri anigu ma ahi ilmo yar oo aad la yaartid waxaan ahay nin weyn waxaan ku soo guursay si aan reer u samaysto arurna igu dhashid marka iska daashay ka filimka aad ku nooshahay iyo riyadan oo reerkaaga si fiican u dhaqo iyadii oo ilmeynaysa lanaasan xaaladan aysan filanin ee soo wajahday ayuu u sii raaciyay niman asxaabteeda ayaa maanta i soo raacaya oo waan soo qada doonana marka noo sii qado kari aan u nimaano iyadoo diyaar ah la soco qaybta saddexaad hadduu aad la idmo